wasaaradda maaliyadda gobolka Saraar gaar ahaan xafiiska cashuuraha biriga ee magaalada Caynabo ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay olole ballaaran dhanka cashuuraha biriga gaar ahaan sanadka 2015 lixdiisa bilood dambe. Ololahan oo ah maanta guud ahaan lagu bilaabay qaybaha uu ka kooban yahay gaadiidka kala duwan ee isaga gooja jidka dheer ee isku xidha gobolada Togdheer, Saraar iyo Sool iyo waliba gaadiidka kala duwan ee ka howlgala gudaha magaalada Caynabo ayaa waxa kamarada telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay qabanaysa shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda gaar ahaan cashuuraha biriga oo si habsamay iyagoo hawsha u gudanaya iyagoo sidoo kalena ciidamada kala duwan ee turbataariyada ee ilaalinta cashuuruhuna ay si habsamay hawshooda u qabsanayeen. Maamulaha xafiiska cashuuraha biriga gobolka Saraar Maxamed Jaamac Maxamuud ayaa isagu ka xog waramay olahan ballaaran ee dhanka cashuuraha biriga ee lix biloodka dambe ee sanadka 2015 isagoo baaqna u diray gaadiidleyda kala duwan oo ugu baaqay inay cashuurta isaga bixiyaan si habsamay ah. bishii toddobaad 2015 ayaa waxaan ka doonay ololihii cashuuraha oo bishii toddobaad ka bilaabmayay roob tubiska iyo gaadiidka sida aragtaan gaadiidkan tuman ee halkan lagu cashuurayo sida daraaddeed waxaan leenahay dadweynaha iyo gaadiidleyda inay cashuuraha iska bixiyaan gaadiidka istadarawaliinta iyo kala wareejinta dhammaantood aan ugu burinayno inta yar ee cashuurta lagu leeyahay ee qaranka ugu shaqadiisu ku soconayso sida awgeed waxaan dadweynaha aan burinaynaa inay gacmahooda jira ay nagu dakhli iska soo bixiyaan. taliye ku-xigeenka ciidanka ilaalada cashuuraha ee gobolka Saraar Xadigle Jaamac Caalin Ducaale ayaa isaguna ka xog waramay doorka ay ka ciidan ahaan ku leeyihiin ilaalinta dakhliga dawladda. Dhammaantood haddaan nahay maaliyadda, haddaan nahay ciidanka booliska, haddaan nahay gaar ahaan turbataariyada waxaanu saaka halkan ka bilownay cashuurtii si fiican bay noogu socotaa. dadka weynaha waxaanu leenahay cashuurta ay ku waajibtay inaad iska bixisaan. xisaabiyaha gobolka Saraar Deeqa Aadan Geedi oo iyaduna kormeer ku mareysay goobahan kala duwan ay ka socoto ololaha ballaaran dhanka cashuuraha biriga gaar ahaan 6 biloodka dambe ee sanadka 2015 ayaa iyaduna ka xog warantay sida ilaa hadda ay hawshu u socoto iyadoo sida weyn u bogaadisay shaqada fiican ay tilmaantay inay qabanayaan mas'uuliyiinta cashuuraha biriga gobolka Saraar oo ku tilmaantay kuwa si hufan oo karti leh uga soo baxay shaqadii qaranka ee loo igmaday. sidaad aragtaan anagu waxaan hadda kormeer ku maraynay goobaha ay ka socoto dakhli ururinta xafiiska cashuuraha biriga. goobaha cashuurta ka socotay waanu soo wada marnay dhammaantood si wanaagsan oo habsami ah way uga socotaa shaqaalaha cashuuraha biriga oo iyagoo aan seexanba marka si wanaagsan way noogu socotaa hawsha insha Allah way sii socon doontaa si nabadgelyo ah. wassalaamu calaykum. Jaamac Boodacde TV qaranka Soomaaliland Caynaba.